kusoo dhawaada shabakada Sayax oo aad uga barateen in idin soo baahiso cilmiga teknolojiyadda. Waxa aynu soo socday koorsadii WordPress oo aynu kaga hadlaynay xalaqadii toddobaad sida loo soo geliyo page. Waxaynu xalaqadan oo noqonaysa xalaqada 8aad ama 10ka 8aad aynu kaga hadlayno hadii la haydmo sida loo soo geliyo slide image header-ka ama qaybta sare website-ku yeelanayo sida loo soo geliyo slideshow soconaya. Si aynu u soo gelino waxaynu tagaynaa hadaba dashboard-keena kadibna waxaynu ka dooranaynaa waxaynu soo dejisaynaa plugin cusub oo slideshow ah. waxaynu ka dooranaynaa meesha ay ku qoran tahay plugin ayaa ku dhufanaya kadibna waxaan ku dhufanayaa meesha ay ku qoran tahay add new. qaabkan ayaa ii soo baxaya. hadaba waxaan ka raadinayaa search button-ka plugin cusub oo la dhaho meta slider. wax space u dhaxaysiinaya meta slider kadibna waxaan leeyahay enter. wax yar baa sugaya kadibna waa uu ii soo baxay. waa kan install now. markaaynu saa ugu install gareyno waxaa inoo soo baxaysa calaamadda activate kadibna waan dooranayaa oo waan activate gareynayaa. waad aragtaan waynu activate gareynay. wuxuu inoo soo gelayaa kadibna dhankan hoose qaybtan ayuu inoo soo gelaya. waad aragtaan meta slider wuu inagu shumay oo waxaan soo furayaa meta slider. sida ugu soo baxo waxaan ka dooranayaa meesha ay ku qoran tahay new slideshow. waxaan ka dooranayaa meesha ay ku qoran tahay new. kadibna waxaan ka dooranayaa add slide. kadibna waxaan soo gelinayaa upload files oo ka dooranayaa kadibna waxaan leeyahay select files. waxaan dooranayaa meesha aan dooranayo sawirada aan soo gelinayo waas sidaas ayaan tig saarayaa kadibna waxaan leeyahay open. kadibna waxaan ka dooranayaa add to slideshow. waad aragtaan waa uu inoo soo galay saddexdiiba sawir waa inoo soo galeen. halkan haddii aad imaano warsiga ama qalaca waxaad ka bedeli doontaa. sidoo kale hay'adka waxaynu ka bedelaynaa. aynu aragna hadda soo baxayo kadibna waxaynu leenahay dooranaynaa save. haddii aan ku noqdo qaybta home page-kayga qaybta hore ee home page-ka waan refresh. wax isbedela ima uu soo muuqan. saas daraadeed waxaan sameynaynaa oo tagaynaa pages. waxaynu ka dooranaynaa new page. waxaan u bixin doonaa slider kadibna halkaa waxaan soo gelin doonaa linkiga uu yeelanayo meta slider. waxaan soo gelin doonaa linki. waa kan linki. waa linkigaas waxaan leeyahay copy intaan aad gareeyo. waxaan leeyahay right click kadibna copy.
page-kayga kadibna waxaan kusii dayn doonaa oo odhan doonaa past. intaa markaan sameeyo waxaan sameynayaa iyadana parentheska waxaan sidiisaan u daynayaa default-igana waxaan leeyahay full width page kadibna waxaan leeyahay publish. haddaan ku noqdo qaybta hore page-ka waan refresh gareeyo slider baa soo galay waad aragtaan oo inoo soo galay sawiradii ay soo soconayeen isaga ayaa automatic isku beddelaya. okay waxaan rabnaa inaynu size-ka wax ka bedelno. si aynu size-kii wax uga bedelno waxaynu ku noqonaynaa qaybteenii hore kusoo gelinay mashood halkan 700 halkan 400 baan ka dhigayaa 450. fading effect-gana amsiisaan deenayaa default settings-kan ma waxaad ka dhigaysaa dark mise light mise adaa dooranaya. dots iyo hiding kani waxa weeye waa qaybtan ama iga qari ama dots iga dhigay. inta markaad sameyno iyagana 450 ma ka dhigay hadda asif gareeyo hadda isbedelka dhacayana waad aragtaan size-kii aad buu u weynaaday. 700 aan iyadana aan ku daro aan ka dhigo 750. sidoo kale waxaan rabaa awal wuxuu ahaa flat slider waxaan ka dhigayaa hard slider kadibna waxaan leeyahay save kadibna arag isbedelka ka dhaca. waadta qaabkaas ayuu soo saaray tirooyinkii aan dhudskii ka bedelay preview iyo next uu leeyahay qaabkan kale aan firino evo slider-ka kadibna aan dhaho save kadibna aan dhaho refresh. kanina waa qaabkaas qaab allalaadu qaabka jecesha qaybta u dambeysa aynu iyadana aragno save-kaana adiga iyo dooqa nooca uu jeceshahay uu ku soo baxayo website-kaagu ayaad ka dooranaysaa. waxaa intaas raaca advanced setting baa halkan ka dooranaysaa iyadana wixii aad image-ka qaab standardkiisa waa ka dhigi kartaa standard sidoo kale randomly automatic isugu xigaya xawaaraha u dhexeynaya wixii dhammaantood halkan ayay ku qoran yihiin. wixii aad ugu baahan tahay oo dhan halkan ayaad ka dhigaysaa. next-ga iyo previous-ka oo waxa soo muuqanaya Soomaaliland ku xiga sidoo kale previous-na waxaan ka dhigaynaa muuqasho kadibna waxaan leenahay save. si hadda waa inuu aragno aynu ku celino kan kadibna aan dhaho save. waad aragtaa kana wuxuu ka dhigay muuqasho kana wuxuu ka dhigay kaxiga oo af Soomaaliya automatic si ay isu kala bedelaya. waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen casharkan oo koorsadii WordPress qaybtiisii u dambeysay ah. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa course WordPress